representative igu ah xaafadayda Etobicoke Central. Woo! Waxaan rabaa inaan u waco Yvonne Baker. Yvonne Baker, woo! Who's also wuxuu u cararayaa Yvonne Baker and Etobicoke Central buu u cararayaa ummad badan oo Soomaaliyeed baa degan ridingkaas. waxaan jeclahay maanta maadaama meeshaan yimid uu ka muuqdo qof kasta oo Etobicoke Central waa ogtiin waxa soo socdo waan ogtiin meeshaad ka soo xaadirinaysaan waa yaa loogu shubayaa. I didn't even have to say that. Please welcome Yvonne Baker. Woo! Thank you very much. Somalia Hanolato. Happy day. What a wonderful introduction. Thank you so much. I have to admit I don't exactly know what you said, but it sounded wonderful. Was it a good introduction? Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, it's really an honor to be here with you again this year to celebrate Somalia Day. Happy Somalia Day to all of you. And my name, as you know, is Yvonne Baker. I used to be member of provincial parliament in Etobicoke Centre. So for those of you who live on that side of Dixon, you were in Etobicoke Centre, okay? So now I am your Liberal candidate to be a member of Parliament in Etobicoke Centre, okay? So in October, I hope that I can earn your support in the federal election to be your member of Parliament. And my hope is to join the wonderful people who are here with us today, to join Kirsty Duncan, who's the MP for Etobicoke North, and I am following in the footsteps of a great champion for the Somali community who's also here, Boris Jasnevsky, who's the current MP for Etobicoke Centre. So my hope is to follow in his footsteps. All I want to say to you is this: it is an honor to be here with all of you. It has been a privilege for the past 5 years as your representative to work with you on issues that matter to the Somali Canadian community, on education, on after-school programs, on many other issues affecting youth and people of all ages, affecting our seniors, on housing. I look forward to continuing to do that if I am elected as your member of Parliament. I think I've proven that I work hard. I will continue to do it again in the future. I've also had the privilege of working with many of you to help build a stronger Somalia. I know many of you work very, very hard on this, and I look forward as a member of Parliament to being able to do that with all of you as well. So thank you very much for having me. Thank you for all that you do for Etobicoke, for Canada. Somalia Hanolato, Canada Hanolato! Thank you so much. Assalamu alaikum, everybody. I am honored today to announce Faisal Hassan. He is a Canadian politician who was elected in the Legislation Assembly. He represents the York South region, which is my region. So please welcome Faisal Hassan. Thank you. Thank you. Iskawarama. Setin Manta. Matu harka dad aad iyo aad u fara badan. Maxaynu Dabaldagii? That's right. Happy Canada Day. Happy Somalia Day. Somalia ha noolaato. Somalia ha israacdo. In dadka aanan garanayna magacaygu waa Faisal Hassan. Waxaan ahay xildhibaanka xaafadda York South Western. Dabcan maanta waxa ay kulankeedu u yahay Canada iyo Soomaaliya oo hal maalin oo isku mid ah u dabaaldegaya dhalashadooda. Maxaa yeelay inagu Soomaali ahaan maanta waxa inoo leedahay qiimo gaar ah. Maxaa yeelay waa maalintaynu helnay gobonnimada, sharafta, midnimada iyo inaynu noqono dad sharaf leh oo calan leh oo adduunka laga yaqaano. Maanta waxaan rajaynayaa markaa in dhammaantiin aad maaragtay aad jeclaanaysaan inaad ka dhidhidaan oo aad caawisaan walaalihiin dhibaatooyinka halkan ka jirana sidii aynu uga wada shaqayn lahayn, xal waarana aynu u gaari lahayn, aynu u noqon lahayn bulsho halkana lagu sharfo qaaradda Afrikana magac iyo sharaf ku leh. aniga waxa ay doorateen baarlamaanka gobolka Ontario. shaqadayduna waxaan tahay inaan idin adeego, waxaan ahay adeegihiina, waxaan ahay qofkii afkiina iyo magaciina ku hadlayay. mar walbana waxaan rabaa inaan maaragtay aan wada tashano
dhibaatooyinka jirana aan ka wada xaajoonno si aynu u helno tixgelin sharaf iyo gobonnimo marka dabcan maanta quruxda iyo sharaftaas dadka intaa la eeg ee digsan isugu soo baxay waxa ayna gelinaysaa iidadiilo iyo dardar xooggan in aynu wada shaqayno si aynu sidan iyo si ka badanba aynu ugu dabaaldegno afkeenna sharafteenna iyo magaceenna marka walaalayaal anigu xafiiskaygu waxa uu ku yaallaa Western Road 1965 wixii gobolka ku saabsan xaafadda degan York South Western waxa aan u joogaa sidii aan idinku adeegi lahaa arrimaha gobolka idinka galana aan idinku dagaalgeli lahaa dadka kale ee walaaladeenna ee gobolka Ontario degana dabcan gobolka Ontario aniga idin jooga cod baad ku leedihiin yes insha Allah 3 sano kadibna waxaan rajaynaynaa dad badan oo ka mid ah qowmiyadda madowga iyo Soomaalidaba inay noqon doonaan kuraasta baarlamaankana ay u fadhiisan doonaan oo aanan ku ahaan doonin qof kaliya oo qowmiyaddeena ka tirsan laakiin aynu helno dad bad oo rag iyo dumarba leh oo codkiina markaa baarlamaanka xubin ka noqda aanu iskaashanno aanu si wanaagsan aan wada shaqayno Soomaaliya ha noolaato sharaf iyo gobonnimo baasanadin Thank you so much. Give it up one more time for Faisal Hassan in the house. MashaAllah. Up next, I would like to welcome a definite community supporter of ours, Christy Duncan, who is a PC MP. Well, please give a warm welcome to Christy Duncan. Assalamu alaikum. Statahai. Alhamdulillah. My brothers, my sisters, my beautiful family. Somalia Hanalato, Canada Hanalato.
Bye.
Prime Minister has stood up and bravely confronted those bigots and said, not in my government, not in Canada, and we'll continue that fight. You know, on the other side, they equivocate. Whenever there is time to stand up for minority rights in Canada, whether it is with the Muslim community or the Sikh community or any other minority in Canada, the other party equivocates. If you look at what they're doing, their leadership, the leader of the official opposition appeared next to a white supremacist in Ottawa by the name of Faith Golden. And he has yet to apologize for that act. His justice critic appeared in front of the Justice Committee and quoted the manifesto of the killer of 51 Muslim worshippers in New Zealand. This is illa qof Somali Canadian u baarlamaanka Canada fadhiistay hooyooyinka iyo aabooyinka xataa wacdigaas bixin jiray oo aaminsanaa inay dhici karto maalinta ay dhacday oo ah October 19 2015 maalintaasaan waxaa ogaanay Somali Canadians inay taariikh dhigi karaan waddankan. waxaan igu soo gabagabeynayaa qiso yar. albaab baan garaacay 2015 anoo cod raadinaya. waxaa iga soo horbaxday haweeney oo European Canadian ah. waxay igu tiri barnaamijkaaga waa u jeedaa ma ka soo horjeedin barnaamijka ninka aad la tartamaysidna waa jeclahay labadiinaba go'aan qofka ugu shubi lahaa codkayga weli go'aankayga ma gaarin. waayaha eri I hope inaad finally aniga isiisid laakiin waa fahansanahay inaadan ilaa hadda go'aan gaarin. markaan sii dhaqaaqi rabay bay ii soo yeertay. waxay tiri fiiri codka adaan ku siinaya maxaa dhacay baan eri. waxay tiri haddaan ninka kala siiyo codka waxay noqon doontaa qof labaad aan doortay qof shanaad qof tobanaad aan doortay. laakiin haddaan adiga codkayga ku siiyo taariikhaan ka qayb qaadanaya sababtoo ah waxaan u codeynayaa Somali Canadianka ugu horeeyo Canada oo baarlamaanka galo. bal fiiri qofkaas haweeneyda waxa ay garatay. waxaas markii inaan garanno waa inaga sidoo kale waa inaan codkeena isticmaalnaa waa inaan xaqeena dhacsanaa mas'uuliyaddeedana waa inaan ka baxnaa. Being Canadian is not just about having rights but also exercising your responsibility. And in an election year, one of the main responsibilities is what? To vote. Vote and vote for the right leaders, the real leaders that will bring you together, not divide you, not dance with white supremacists, but actually bring people together and confront hatred, confront Islamophobia, and prove once again that Canada is the best country in the world by making sure that everyone is represented. Finally, this is the only country in the world that does not برقناي alla beedane هذا بار عستي وبيلن هبلها ستعب بندري بروج كلايو بداني بيقولوا لسواري شك شك أغليهم بدني بدنو برقناها ييو alla beedane هذا بار عستي وبيلن هبلها هنا كوكا لك حيوان